Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah ku xiran channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties. waa walaashin Mema oo idin wada muuqaal cusub. fadlan haddii aad channelku cusub tahay subscribe inoo saar, haddii aad hore inoola joogtay qaybta hoose commentiga laga arko ha ka hilmaamin muuqaalkiina laag saarto. waa laagtu waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. kusoo dhawaada asxaabta qaaliga. keega aad sugayseen sida ujeedaan keega dhexdiisa aadade oo qurux badan yahay. waxaa waaye dhadhan ahaan aniga kaaga waramo aad ayuu dhadhan wanaagsan yahay. keegaaneeti sida hore idinkuugu sheegay waxaa waa keega aan ka ballan qaaday in idin soo gelinayo channelka. doolshahaaneeti waxaa sameeyay foorna la-aan ayaa sameeyay. qaab ahaantiisana waa ka laba xabo waaye oo doolshe waxaan kuugu talagalay in idin la wadaago. aniga aad iyo aad ayaa uga helay, idinkana sidoo kale waxaa rajeynayaa inaad ka heshaan. waxaa rabaa keegan ama doolshaan in idinkaaga faa'iideeyo qaabkii aan u diyaariyey foorna la-aan iyo waxyaabihii aan ka sameeyey iyo waxyaabihii aan ku sameeyey. markaa daawasho wacan. doolshaha markii aad sameynaysid waxaa u baahan tahay ukun. aniga 3 xabo ukun ayaa ugu talagalay, laakiin xabada ayaa iga halaawday. markii ay fuuntooda sidaas ayay u eg tahay, markii ay fiican tahayna waa sidaan. labadan xabo ayaa ka sameynaya doolshadeena. makiinad ma isticmaalayo, laakiin qaandadan ayaa isku dhex gelinaya si fiican ayaana waxaan rabaa inaan u garaaco ukunta. markii aad rabtid inaad doolsho sameyso ukunta kama maarmeyso. asxaabey waxaa rabaa inaan kaaga faa'iideeyo adiga oo waxyaabihii doolshada lagu sameynayo sida foornada iyo weelkii doolshada lagu sameynayo iyo sidoo kale haddii aadan haysanin makiinadii lagu qasayay keega inaa yacni waxyaabaha aad ka sameysan kartid ayaa rabaa inaan kaaga faa'iideeyo. marka waa ka hadda keega ukuntii ayaa garaacay. waxyaabaha ku daraa waxaa kamid ah bakinka wuxuu iga saacidayaa in ay yacni soo furto doolshada. 3 qaando oo bakin ah ayaa ku daraya iyo 2 qaando carfisada iyadana waa sida heelkoo kale. keega caraftiisa ayay ka qayb qaadataa iyo dhadhankiisana way wanaajisaa. marka waxaa rabaa inaad ku qaso keega faniilada iyo bakinka oo iga saacidayo labadaba inay doolshadeeda ay noqoto doolsho dhadhan wanaagsan, qaab ahaana muuqaal wanaagsan. sidan ayaana ka dhigay. markii aan si fiican iskugu garaacay heel ayaa ku daraya. heelkana wuxuu isiinayaa caraf ayuu ii siinayaa keega. heelka waa soo tumay waxyaabihii qorfiina waa kasoo bixiyey. qaandada ayaana kula qasaya. heelka mar walba caraf ayuu siiyaa doolshada. waxaa waani badanaa ku darsada asaga iyo faniilada si caraf ay u noqoto doolshada. marka waxaa ku daraya cabir ahaan bakeeri iyo bar oo sokor ayaa ku daraya. sokortan waxaa waaye in si fiican isku dhexgeli waayo oo si fiican loogu qaso. marka qaandada ayaa kula qasaya weli, laakiin marka dambe oo burka aa ku daro waxaa waaye gacanta ayaa ku qasaya. mashiinka lagu qaso doolshada ama keega ma isticmaalayo, waayo waxaa rabaa inaad intuso qaabka adiga waxyaabihii doolshada laga sameynaya aadan haysanin aa u sameysan karto. marka waa kaas sidan ayaana u qasay sokorta si fiican ayaan isku dhexgeliyey. bakeeri iyo bar saliid ayaa ku qasaya. bakeeriga hore waxaa ku daray sixin, haafka kalena waxaa waaye saliid caadi ah oo nadiif ah. marka saliidan waxaa waaye doolshada waxyaabo lagu qaso ayay ka mid tahay oo doolshada ay ka dhigayo inay doolsho ahaan ay usoo baxdo. marka saliida lagama maarmaan waayo, waana muhiimka doolsho walba oo la sameynayo. marka waa ka asxaabe bakeeri bar caano ah ayaa qiyaasaan ku daraya. barka kale gadaal ayaa uga daraya. marka intan ayaa xarawa burka inaa kula qaso. marka burka aan qaso kadib ayaa haaf kale caanaha ku darsanaya. marka waa kaas si fiican ay isku soo dhexgeliyay. markaan sokortii way milantay. sokortan waxaa way dhidhil kuma milmayso, in si fiican u qastid waa inta aadan ku darin burka. haddii kale waxay ka noqonaysaa jajab, yacni sokortii ayaa ka soo dhexgalayso. marka hadda burka ayaa rabaa inaa ku daro. burka qiyaas aan 3 bakeeri waaye burka aa ku daraayo. bur fudud maan, bakeerigana zaid ayuu u buuxaa. marka waa ka bakeerigan 3diisa ayaa ku soo daraya cabir ahaan. waa ka burka cabir ahaan 3 ayaa ku soo daray waana ku qasaya. qaandada ayaa hore isku dhexgelinaya, laakiin markan waxaa waaye gacanta ayaa ku qasaya maadaama aan isticmaalaynin mashiinka loogu talagalay in lagu qaso doolshada. wax walba waa sameysan kartaa haddii laakiin adiga ka soo go'do waaye adigoona yacni marka aan haysan waxyaabihii laga sameynayay, laakiin wax walba guriga ku yaalo oo si fudud ayaa u sameysan kartaa. marka waa ka keegeeniina gacanta ayaa ku qasaya, weliba si fiican ayaa isku dhexgelinaya aana u garaacaya. marka waa ka asxaabe sidan ayaa ka dhigay. waa ka waanigii soo qasay. waxaa rabaa markii inaan haaf caano korka uga daro maadaama uu adag yahay. qiyaas aan waxaa waa bakeeri bar oo caano iyo saliid iyo sokore iyo 3 bakeeri oo bur ah waaye. keega 2 xabo ayaa rabaa inaan sameeyo. marka waa ka caanihii kalena haaf ayaa kaga daray si fiican ayaana u qasaya.
waa ka asxaabey waa soo qasay doolshada sidan ayaa loo tijaabiyaa inay adeeg ahaata looma baahno sidoo kale inay jileec zaid ka noqotona looma baahno haddii adkaatana ma fiicno haddii ay jileec zaid noqoto ma fiicno marka doolshadeenin waa kaa waa inoo qasan tahay ilaa 15 daqiiqo ayaa sugeynaa kadib ayaa dubeynaa 15 daqiiqo kadib ayaa kusoo laabtay indha ayaa bixiyay marka waxaa markaan markii la dubi lahaa waaye waxyaabaha ku dubaa idin tusinaya waxyaabaha ku dubaa waxaa ugu horeeya digsiga ayaa ugu horeeya digsiga 2 xabo ayaa isticmaalaya digsigan weyn iyo digsi kale oo yar oo aan dhex gelinayo waayo waxaan ku dubayaa dhuxul ayaa ku dubayaa keega marka waa ka digsigaas dhex gelinaya laakiin digsiga waxaa waay saliid in la mari waaye si ayna keega kaaga qabsanin markii aad ku shubeysid waa inaad saliid marisaa marka dabool yar ayuu leeyahay aan saaraya daboolka kale ee digsiga weyn ayaa ka kor marinaya kadib dhuxul ayaa ka kor marinaya daboolkan ujeedaan waa daboolka weyn ayaa dhuxul korkiisa ugu shubaya qaybta hoose ee burjikadan dhuxusha waan ka nadiifinaya si yacni keega mar walba kor ayaa dabka loo badayaa qaybta hoosena dabka khafiif ayaa looga dhigaa foorna ma isticmaaleyno marka waxyaaba ugu fudud ee guri ku yaal waxaa waaye digsiga ayaa kamid ah waa keeg ku sameysan kartaa haddii aadan wax dhan haysan xitaa geedka keega lagu sameeyo waa ka maarmeysaa halkan waxaa igu diyaarsan dhuxushii aan ugu talagalay inaa keegeena ku dubo waxaa waaye dhuxul caadi ayaa ku dubeynaa ama burjikada aan isticmaalno marka dabkeen waa kaa inoo soo qaxay markaanita waxaa waaye inaad digsiga ku shuba keega waaye si aan keegeena u dubano waayo dabka aan ku dubi lahayn diyaar waaye laakiin marka hore saliid ayaa marineynaa saliidan waxay iga saaciday in keega uusan ku dhegin digsiga aan ku dubanayo digsiga waxaa mariyay saliid daboolkana sidoo kale saliid ayaa marinaya haddii lacala doolshada ay soo fuurto si uuna igaaga dhigin ama ay soo kacdo doolshada markii yacni hoos ay kasoo dubanto marka digsiga mar hore ayaa waxaa ku sameeyey doolsho ayaa ku sameeyey marka daboolka sidaas ay u gudubtay marka hadda waxaa waaye doolshada 2 ayaa u kala qaybinaya qaybta koowaad hal xabo ayaa ka dhigaya doolshada inoo qasneed qaybta kalena xabad kale ayaa ka dhigaya haaf ayaa ka reebaya hadda kuma wada shubaayo marka waa kaasaa haafka ugu horeeyay xabad ugu horeysa doolshada ah ka sameyn lahayn ayaa inoo diyaara digsiga sidaas ayaa iskula sameysaa marka waa kaa digsiga kale ayaa ku dhex riday daboolkiisii ayaana saaray marka si aan idin tuso ayaa daboolka uga qaaday asxaabe daboolka yar waxaa waaye waa kaa dabool kale ee weynaa ayaa kor kasii saaraya daboolkaas yar in wax oo jika inuu iga galo ayuu iga saacidaya midkan weyna kor ayaa waxaa ugu shubaya dabka dhammaantiisaba waa ka gurayaa burjikada ama jikada sidaad u taqaanaanbo marka waa kaa waxaa rabaa inaan ka guro oo korka ka saaro daboolka aan ku sameynayo keega ama doolshada si dhammaan yacni dabka maadaama uu ka fog yahay digsiga yar kor uu zaid uga guduuto hoosna uu zaid uga guduuto mar walba hoos waa inaad dhuxusha dhan aa ka dhameysaa korna aad dhuxusha dhan wada saartaa si yacni qaybta hoose uuna kaaga gubanin qaybta korna ceeriin uu kaaga noqonin dhexdan ceeriin uusan uga noqonin marka dhuxusha kor looga shubayo waxaa loola jeedaa foornadii oo labada dhinac ka sameyneysay marka waa kaa burjikadii dhuxusha dhammaan waa ka nadiifiyey digsigana waa kaa waa soo saaray marka qaybta hoose idin tusinaya wax malahan dhuxul ama dab ku jirta habiraatee malahan dabka kor ayuu saaran yahay marka 45 daqiiqo ayuu qaadanaya inuu ku bislaado kadib ayaa inoo balan ah 45 daqiiqo kadib asxaabe waa ka doolshadeena waa soo dajiyay dhulka ayaana soo dhigay marka waxaa rabaa inaad tuso qaabka ay ku soo baxday maasha Allah waxaa waaye waa ka qaybta kore gaduud ayay noqotay qaybta hoosena waa idin tusinaya waan ka gedinaya marka hore waxaa rabaa inaad ku tijaabiyo istakiin inaad ku tijaabiyo ama baasta ay ku tijaabin kartaa dhaxda inay qaleel ka tahay in kala doolshada si loo ogaado marka waa ka dhaxda qaleel waaye wax qoyaan hoos iga soo raacay ma lahan marka asxaabta qaali waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen qaabka uu sameeyay xabada kalena waa idin tusinaya marka doolshada waa sameysan kartaa adigoo aan foorna haysanin xabadaas waa kaa saxankaas ayaa ku shubay marka waxaa rajeynaa aan kor saaray marka waxaa waaye qaabka ay kusoo baxday waxaa rajeynaya inaad ka hesheen dhexdeedana waa taa hore usoo aragteen marka asxaabta xabadii labaad ayaa rabaa inaa idin tuso laakiin marka hore xabadaaniti ka warama sida ay kusoo baxday doolshadeena inaba caadi maaha qurux ayay kusoo baxday dhinacahana waa ka dhammaan qaybta hoose iyo qaybta kore waa is leedahay oo ma aha ma kala duwano dhexdana biseyl ayay ka tahay marka waa ka maarmeysaa waxyaabaha kale ee guriga ka maqan ee doolshada lagu sameeyo
qaybtii labaad ayaa rabaa inaan sameeyo. xabadaas waa ka waa diyaarina, xabadi kale waa sameynayna insha Allah. marka digsiga saliid ayaa mariyay, waan soo nadiifiyay marka koowaad si doolshada xigta uusan igaaga dhegdhegin. marka xabadan ayaa ugu dambeyso. keega qasanayna wuxuu ahaa 2 xabo doolsho qiyaas ahaan. marka asxaabta qaaliga xabadan ayaa ugu dambeedo. ayadan waxaa rabaa sida xabadan aan u sameeyo oo kale inaan u sameeyo. waxaa rajeynayaa inaad ka hesheen dhammaan aad ka faa'iideen qaabka loo sameyn karo doolsho foorna la'aan ah, waliba doolsho qurxan adiga xitaa aadan haysan weelka lagu sameynaayo, kii lagu qasaayo, makiinka lagu qasaayo, wax badan ay ka maqan yihiin oo kale wax aad haysatidna aad ka sameysan karto foorno. marka waa ka xabadi kale diyaar waaye. waxaa rabaa in dabka inaan saaro, dhuxul kale ayaa u sii shiday si iga yaraanin qaybta kore, waayo ma rabo in qaybta kore ciirin iga noqoto, dhaxdana sidoo kale. marka waa ka dabkii ayaa badana waxaa kasoo saaray korka ayaa kasoo saaray, waxaa waaye burjikadii ayaana sii saaray. marka qaybta hoosena waxaa waa dhuxusha dhammaan waa ka guray sida hore idin tusay. hadeerna waa ka wax dhuxul habeeraatay kuma jirto, kuleel yar ayaa kasoo baxayo. kuleelkaas yar ayaa qaybta hoose ku filan, laakiin dabka waa ina badana kor zaid uga buuxisaa si qaybta kore ay kugu bislaato adoon uga ka badinaynin. qaybta kore ceerinina lama rabo, doolshada ka gubato lama rabo. waa ka soo dajiyay sida ujeedaan waa tijaabinaya. marka asxaabta qaaliga waa ka doolshadeena ayadan waxay ku tijaabinaya istakiin ama baasto ay ku tijaabi kartaa. waxaa rabaa istakiinka markii aad geliso inuu qaleel noqdo si aad u dareentay in doolshadaadu ay dhaxda biseel ka tahay, laakiin haddii qoyaan uu noqdo waxaa ogaataa doolshada inay dhaxda biseel ka tahay. mar walbana dabka waa inaa qiyaastiisa la socotaa. 2 xabo doolsho aan sameynayay asxaabteeda waa ka sidaan ay quruxda badan ay kusoo baxeen. waxaa rajeynayaa inaad ka hesheen dhammaantiinaba sida aniga uga helay. haddii aadan wax haysanin doolshada waxyaabaha lagu sameeyo waad ka maarmi kartaa. waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideen dhammaan cashirkan sida loo sameeyo doolsho foorna la'aan ah. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.